بسم الله الرحمن الرحيم عن حفلتنا آتك وقيمة بدن عن أي أدوم ما نقينا ضدك سوق من قابي حفلتنا آتك وروح البدن إيو مرت شرفك وما تنقل سوق يبقى واحد مان حليدي نادي بنادر تلكوم ما ملكيدي معلمين تيد دمان يعياري هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي وإلياس عبد محمد. ناديgan بنادر تلكوم waxaan ku soo biiray sanadka markuu ahay 1999kii macallinkii qorxay macaan halbo ciyaartoydii ugu soo dhaweysay waxa kamid ah Shooqona Maax iyo Islaandey waxaan la soo qaatay Horyaal waxaan kula guuleystay koob Jaran Daawud waxaan kula guuleystay koob Super Cup waxaan kula guuleystay koob badan oo munaasabado ah insha Allah waxaan rajaynayaa kulamadan inay noqon doonaan kulamo joogto ah oo waqti walba ay yeelan doonaan naadiguna xasuustiisa iyo taariikhdiisana dib loo aasi doono waqtigiisana la geli doono insha Allah waxaan gaarsiin doonaa kulamadan dhalinyaradii naadiga kamid ahay oo wadanka dibadiisa joogto Yurub u badan insha Allah waa kulmi doonaa waa wixii meesha aan ku wada hadalno waan gaarsiin doonaa kan maamul ahaan maamulka gobolka Banaadir naadigu wadada u mareen waxaan ka dareemi kartiin inay tahay wada aan sax ahayn waayo meeshan waxa ka wada aragteen ciyaartoydii macallimiintii maamulkii taageerayaashii oo waqtiga adkaay naadigu ilaa heerkaas gaarayay la taagnay garab iyo hoo kulamadeena kalena waxaan rajaynaynaa in kulankan ka balaaran la iskugu imaan doono koroonkii weynaay ee Minishibiya ilaahay amarkiisa ay ku dhacday in nadiif ka ahaado oo ka badbaado laakiin juhdi ay galiyeen ay tahay dadka meesha wada fadhiyo oo suurto galiyay magaalada Muqdisho waxa ka furnaa garoomo badan oo horseed ka mid yahay jeey garoonkii madbacada garoonkii wadxool kulli waxay noqdeen deegaan oo la wada degan yahay laakiin garoonkii Minishibiyo wuxuu noqday garoon ka badbaado in la dego iskamaan badbaadin waxa suurto galiyay dadka deegaanka ciyaartoyda kooxda maamulka taageerayaasha macallimiinta inay wali hawsha loogu talagalay oo sportiga ahay in lagu qabto oo ku sii socdo halkiisa bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxaan aad u salaamayaa khiyaarta ka soo qayb gashay xafladan aadka u quruxda badan qaybahooda kala duwan ciyaaryahano taageero macallimiin iyo maamul intaba waxaan rabaa inaan wax yar oo kooban idin sheego dabcan intiina meesha fadhiso way ogtahay laakiin dadka ma daawan doonaan wax yar faahfaahinaa Banaadir Telecom meesha ay ka soo aasaasantay iyo qaabka ay ku soo aasaasantay iyo dadkii soo aasaasay intaba wax qof sports ka shaqeeya hadii loo sheego ay hore ka taqaano waay shakhsi gaar uma lahan nin kaligiisna ma lahan Banaadir deegaan ay ka soo jeedaa oo intaas oo sano ay jirtay qarash iyo wax walba ku soo bixinayo marka waxaan rabaa inaan si kooban uga hadlo arinta ku saabsan gobolka iyo kooxda gobolka Banaadir anaga waa deganahay waana ku dhalanay waana ka tirsanahay waana meeshana looga taliyo waa taageersanahay mana ka soo horjeedno laakiin qaabka kooxda iyo nidaamka loo marsiiyay waxaan dareemaynaa qaab gobolka xataa uusan xog badan ka haynin oo waxba loo madoobeeyay ama waxba la isku hoosgeliyo loo geeyay dad aanan kooxda matalin ama aanan shaqo ku lahayn inay meesha tageen heshiisna lagu galo sidaas taas macnaheedu ma ahan kooxda in la qaato in guddi ka tirsan xaafadda naadiga inay yimaadeen group aqoon-yahanno ayagoo ah na balansaneen oo ay rabeen in wax badan laga bedelo qaabka ay kooxda u shaqeyso iyo qaab dhismeedkeeda wax laga bedelo iyo inay noqoto kooxda wax dokumenteysan oo wax u qoran marka waxaan xasuustaa markaas su'aalii ugu horreeyay weydiinay waxay ahayd naadiga iska leh naadigan ay idin qaabeen naadigan yaa iska leh naadiga waxay noogu jawaabeen community-ga ayaa iska leh waxayna noqotay 25 November inay ku biirto kooxda gobolka Banaadir in la mantaanoodo iyadoo ay maamulka markaas maamulay ay go'aan ka soo wada qaateen marka waxaan u sheegayaa bulshada bahweynta sportiga ah inaysan heshiiska markaas laga galay naadiga inuusan heshiis sharciyad ku dhisan
una baahan in wax laga bedelo waxaan ka codsanaa naadiga Banaadir Sports Club waxaan ka codsanaa naadiga gobolka Banaadir in ay dib u habeen ku sameeyaan ama dib u habeen ku sameeyaan heshiiskii markaas la galay dibna loo fiiriyo kadibna go'aan degdeg ah laga qaato insha Allah maasantiin laakiin nasiib daro dad baa isku dayay inay kor sii qaadaan ay ka soo bixiyaan wasaaradda ilaahay waxaan ka barajeynayaa in aan muddo badan kooxdan 16 sano aan tireerin macalinta baro ahay Ilyasi maxaa la yiraahdaa dhalinyarada joogta ciyaartooyda waxaan u baahanahay dadka hadda doonaya inay kooxda dib u celiyaan waa dadka hadda kooxda magaceeda bedeshay laakiin annaga kaasaan ilaashanaynaa intaan noolna kaasaan ilaashanaynaa kaasaan doonaynaa ciddii diidan ayay dhibaysaa hore ee Banaadir Telecom ee faca weynaa ilaa hadda meel lagu sheegay ma jirto in ay ciyaartoydii hore oo dalka iyo dibadda joogay ay soo xasuustaan maahane wax ilaa hadda qiimeeyay oo intuu u yimid naadigii hore ee faca weynaa intuu joogaa ama maaragtay intuu ku nool yahay aba intuu ku dambeeyay ma jiro waxaan u hambaleynayaa naadiga Banaadir Telecom inta uu ka koobnaa alaha maanta nala joogta ee kulanka joogta iyo kuwa maqan oo magaalada jooga iyo kuwa dibadaha kala jira Yurub iyo Amerika iyo Afrika iyo Aasiya iyo Carabta kala jira kuligoodii waxaan ugu hambaleynayaa inuu naadiga dib isu xasuustay ee dib isugu yimid kulankiisana uu ahaan doono mid joogta ah mar walibana la is arki doono waxaan la qaatay goolal badan waxaan u dhaliyay goolal adiga gaaraya 200 gool oo kale waxaan la qaaday koob badan laba super koob aan u qaaday waxaa lagu sii gool dhalinta markaasna macallinkayga ayaa joogay Calabo waxa ugu soo ooyay anaga horyaalka hogaaminayno ayaa soo kumeen waxna ka dhalisay hal gool waa dheeli ciyaartoo 6 daqiiqo ka dhiman ayaa ka dhaliyay laba teese wajiyo aan wax badan is arknay oo isla shaqeynay oo isla soo dheelnay oo maamul iyo ciyaartoy iyo taageerayaal wadaba ah waa kulan aad u farxad badan oo ay ku xusaan naadigii magaca weynaa ee Banaadir Telecom oo wax badan aan u soo ciyaarnay maamulna aan u soo hayn dalka iyo dibaddana aan la tagnay waxaa la rabaa naadigan in kulankan markasta la sameeyo bil kasta la sameeyo waqti walba la qabto naadiga wax badan ayaa ka soo baxayo maamulka sida uu sheegay walaalkay gogo oo ka dhawaajiyay maamulka gobolka Banaadirna waa inay ka fiirsadaan naadigan dad baa iska leh dad baa u soo halgamay dadkii lahaay waa joogaan dal iyo dibadba inay wax walba ay ka fiirsadaan waa muhiim intaas kadib naadigan waa naadi fac weyn ma aha naadi ku taagnay dad shakhsiyaad ma ahan waa naadi si isku duuban dad isku xiran ay uga shaqay jireen naadigan waligiis naadiyada asiga ugu horeey jiray oo hadda calaamadan meesha ku taal aad arkaysaan annaga calaamadaha naadiyada inta bilawnay naadiyada lagu qasbi jiray documentationka annaga sameey jirnay emailada annaga sameey jirnay naadiyaasha lagu qasbi jiray hadda naadigi sidaas ahay oo isku xirnaanta iyo nidaamka wanaagsan ku shaqay jiray hadda wuxuu ka baxay gacantii isku xirnaanta wuxuu galay meel qaas ah runtii naadiga Banaadir Telecom waa naadi waxa ku soo biiray 93 waxa macallin yahay macna albu waqti badan muddo badan waa ku soo qaatay aniga waxyaabo badan ku soo maray dhibaato badan la soo kulmay heer xataa gacan ugu jabo arkay dhib badan la soo kulmay oo ciyaar ko horyaal qaadno safar ku aadirnay ayaa ugu baaqday ciyaartaas gacanta ugu jabo aalmitay ugu dambeysay waxaan meeshan u sheegaynaa baaqan u diraynaa gudoomiyaha gobolka oo si hoose loogu xasaasiyay inuu faragelin soo galsho waxyaalaha meeshan ka jiro sida saxda ah oo ah in naadigaani dadkii tashigiisa taladiisa lahayd dad aan ahayn lagala tashtay waxaan codsanaynaa inaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in kusimaha ah in sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu wanaaga badan oo u farageliyo waxyaalaha mugdiga ku jiro oo aad iyo aad dadka ay u dhibasanayaan Telecom inay u soo laabatay taageerayaashoodii dibadda iyo kuwii gudahaba inay taagan yihiin maanta wixii ka dambeeyo inay Banaadir Telecom boorka ka jafaan